السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسو دوادا وركا هبينimo xogta ciyaaraha qodobada ugu waaweyn warkanan waxa kamid ah Filippo Coutinho oo sheegay kooxda uu doonayo inuu ku biiro Manchester United oo doonaysa inay dhameystirto laba saxiix ka hor inta uusan dhamaan isbuucan. Higuain oo sheegay inuu ka tagayo kooxda kubadda cagta Juventus. Dani Alves oo ku maadeystay ciyaaryahan Leo Messi iyo kulamada caawal ciyaari doona Copa America iyo koobka adduunka ee gabdhaha ka soconaya Faransiiska. qodobadaasi wixii kale nagu soo kordhaya warkan idinkugu soo gudbin doonaa balse haddaad ku cusub tahay channelkan subscribe inoo saar. aynu ku horeyno ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Brazil Philippe Coutinho oo horey ugu soo qaateen kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 18 bilood kaliya waxa uu markaasi u ciyaarayay kooxda kubadda cagta Barcelona isagoo markaasi 18 bilood xaalad aad u adag boos la'aan niyad jab iyo kubadiisa hoos u dhacday marka uu kala kulmayay garoonka Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barcelona ay ka dhisan tahay. ciyaaryahankan oo qaab ciyaareedkiisa kooxda Barcelona iyo maamulkeeda aad aysan ugu qancin ayaa waxa la sheegay in marka kooxdu ay iska fasaxiso laakiin ciyaaryahan Philippe Coutinho oo isagu laftigiisa isdareensan inuu hoos u dhac kubadiisa ku timid ayaa waxa uu sheegay in uu markaasi ku biiri doono kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ama PSG. ciyaaryahankan ayaa waxa uu markaasi qayb ka noqonaya ciyaaryahan Neymar oo isaguna la sheegay in kooxda Barcelona dib ugu soo laabanayo oo PSG uu ka soo tagayo. Philippe Coutinho ayaa waxa markaasi kooxda kubadda cagta Barcelona ugu yimid lacag gaaraysa 140 milyan oo kooxda Liverpool markaa looga soo qaatay laakiin sidii la rabay uma uusan qancinin kooxda. ciyaaryahanka kubadiisa ayaa hoos u dhac weyn ku yimid. wargeys ka soo baxa dalkaasi Spain gaar ahaan gobolka Catalonia ayaa waxa uu sheegay in wakiilada Philippe Coutinho in wada hadal iyo heshiis markaasi ay kula jiraan agaasimayaasha kooxda Paris Saint-Germain. dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay doonaysaa inay dhameystirto laba ciyaaryahan oo muhiim u ah kooxda. ciyaaryahanada kooxda Manchester United ay diiradda saarayso inay markaasi heshiisyo la gaarto ayaa waxaa ka mid ah ciyaartoyda sida markaasi ninka la yiraahdo Longstaff iyo ciyaaryahanka Bruno Fernandes. sidoo kale waxaa qayb ka ah ciyaaryahan Harry Maguire. Manchester ayaa waxaa la sheegay in 70 milyan gani ay ka gudbisay ciyaaryahanka Harry Maguire ee kooxda Leicester City u ciyaara laakiin kooxda Leicester ayaa ka soo diiday dalabkaasi 70 milyan ah waxaana markaasi ay doonayso kooxda Leicester 100 milyan ama 90 milyan lacag markaasi u dhiganta laakiin kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa diiradda saari doonta in ciyaaryahankaasi ay hesho. taa marka laga soo tago ayaa kooxda United waxay doonaysaa in laba ciyaaryahan inta isbuucan dhamaanin marka ay la soo wareegto waxaana ay kala yihiin Longstaff ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Newcastle United iyo ciyaaryahanka Bruno Fernandes oo markaasi u dhashay dalkaasi Portugiiska. United iyo macalinkeeda Solskjaer ayaa si weyn waxay diiradda u saarayaan in xilli ciyaareedkan kooxda Manchester United aad loo dhiso. dhinaca kalena ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Juventus milkiyadeedu iska leedahay laakiin dhawaan iska soo fasaxday kooxda Chelsea Higuain ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu gabi ahaanba iska tago kooxda kubadda cagta Juventus. weeraryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo xulka qaranka Argentine markaasi Higuain ayaa waxa uu sheegay in xilli ciyaareedkii imika soo dhamaaday xaalad aad u hooseysa markaasi ku soo qaatay. ciyaaryahankan ayaa waxa uu markaa la soo waqti qaatay ama laba qayb sanadkii markaa u kala ciyaaray kooxda AC Milan iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaana uu sheegay inuu doonayo inuu xilli ciyaareedkan inta la gaarin ama suuq intuusan xirmin kooxda Juventus uu doonayo inuu ka tago. wuxuu saas leeyahay Higuain ma uusan heli doono boos joogta kooxda kubadda cagta ee markaasi Juventus maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin ciyaartoy aad u culus sida Cristiano Ronaldo, Paul Dybala iyo ciyaaryahanka Kane lagu magacaabo ee reer Talyaani oo ah ciyaaryahan aad u dacyar. sidoo kale Mandzukic ayaa ka mid ah weeraryahanada halka ku sugan marka isagu aad ugu walwalsan arrintaas iyo wuxuu sheegay inuu doonaynin inuu markaasi sii joogo kooxdaasi laakiin ma uusan sheegin halka uu ku wajahan yahay laakiin waxa macquul ah in
Higuain loogu fasixi doono qaab amaah ah haddii ahaa lahayd Napoli ama kooxo kale ee markaasi ka dhisan qaaradda Yurub iyo China ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha uu doonayo inuu ciyaaryahankan aado. warkeena ayaa weli ku guda jirnay daawadayaasha aynu jecelnahay. Dani Alves oo ciyaaryahanka kabtanka xulka qaranka Brazil ee Copa America markaasi ciyaarayaan oo imikana markaasi sheegay inuu si toos ugu tagayo kooxda Paris Saint-Germain oo markaa heshiiskii uu kula joogay uu dhamaaday oo markaasi isaguba markii hore ugu tagay si free ah oo san wax lacag ah halka ugu tageen ayaa haddana waxa uu sheegay in uu doonayo in markaasi ka hadlo da'da oo dadka inta badan ay ka hadlaan in ay tahay mid aad hoos u dhac keeni karta. Laakiin waxa uu sheegay Dani Alves in da'du ay tahay tiro isagoo markaasi yiri age is a number. Marka ninka odayga ah waxa uu ku maadeystay Leo Messi oo ah ciyaaryahan 32 sano jir ah marka uu ciyaara xulka qaranka Argentina oo marka isaguna doonayay inuu xulkiisa Copa America ku guuleysto. Laakiin xalay kulankii weynaa ee labadan oday oo markii hore isku tirsanaa jireen kooxda Barcelona ay ku kulmeen kulan ka tirsan Copa America oo semifinal ahaa markaasi lagu reebay xulka qaranka Argentina iyo ciyaaryahan Leo Messi. ninka odayga Dani Alves wuxuu leeyahay da'du waa tiro oo kaliya marka waxaa loo baahan yahay ayuu leeyahay in wax badan qabsato sida aniga oo kale ayuu tusaalahaan u soo qaatay isagoo markaasi ku maadeysanaya Leo Messi oo 32 sano jir oo 33 markaasi sii galaya. haddaba iyadoo taa ay jirto ayaa caawana waxaa la ciyaari doona koobka qaramada qaaradda America ama Copa America koobka la yiraahdo oo xalay markaasi final Brazil u soo gudubtay. waxaan wada ciyaari doona Peru iyo Chile waa 9 saac iyo bar habeenimo waa xilli dambe oo xagga Soomaaliya iyo waliba dhinaca saacada geeska Afrika bari marka dadku halka joogan. sidoo kale koobka adduunka gabdhaha ayaa hal kulan waxaa la ciyaari doonaa oo finalka iyaguna marka loogu soo gudbi doono semifinal ah oo laakiin xalay kulankii weynaa ee England iyo Mareykanka gabdhihii dhaxmarayna xulka qaranka Ingiriiska laga badiyay oo Mareykanku ay soo baxeen gabdhahoodii. caawana Netherlands iyo Sweden ayaa wada ciyaari doona. Sweden iyo Netherlands midii soo baxda waxaa final u tagi doonta xulka qaranka gabdhaha dalka Mareykanka ay hogaaminayso Alex Morgan.